الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشركii saddexaad SQL Surface. maanta waxaan ka hadli doonaa qaybo kala duwan ee SQL. Marka waxaan u baahanahay in aan soo kacsado SQL. intaan soo kacsan inta meeshaan marayay ayaan iyo waxyaabaha aan baran doono maanta ka hadli doono. waxaan ka hadli doonaa maanta waxyaaba markaas ka moodino week hore waxaa ka hadalnay SQL qaybihii hordhici introduction SQL aan ka dhibnay. waxaan ka dhibnay SQL muxuu yahay, SQL maxaa laga soo gaabiyey, waxyaabahaas badan ayaan ka hadlaynay week hore. marka waa casharo tutorial ah oo si free ah oo Somali software oo kala taba gashay bulshada Soomaaliyeed. marka waxaan rabnaa maanta mawduucan ka hadli doono waa dhowr steebood oo practical ku jirta. marka hore waxay ahayd hadal kow. waxaan maanta baran doono waxaa waaye how to create database, sidaa ugu kortaa database. laba waxaan baran doonaa how to create table, sidaa ugu kortaa table. how to display data from this database, sidaa aad kusoo muujin kartaa si output ah database. marka intaa ayaan baran doonaa maanta insha Allah biidnillahi tacaala. waxaan kusoo kacsanaynaa sida horey cashirkii koowaad ku barana steebaha si loo soo kiciyo SQL sidii hore inuu sheegayay. marka waxaan tagnaa start menu, kadib waxaan siinaa all program, kadibna waxaan ka dooranaa SQL Microsoft SQL Surface. SQL maxaa soo saartay shirkadda Microsoft Soomaali. waxyaabahaas dhan week hore ayaan ka hadalnay. marka waxaan doonaynaa continue node. waxaan rabnaa database inaan abuuro. kow waxaan suubinaa new query. accessna waa ku isticmaali kartaa, marka aniga waxaan isticmaaloynaa SQL Surface Management Studio. marka saan new query dhigid oo page cusub kusoo baxdo waxaa la rabaa inaad abuurtid database. laba xaba laba step ayaa ku abuuri kartaa. inaad saan dhehdid right click new database, ama inaad dhehdid sida inta new query. markaad dhehdid waxaa doonaysaa waxaa create database magaca baxsana Somali software. waxaa dhehaysaa markaas excuse halid waa aqbaliyay softwareka waa suubiyey databaseka. si kale ayaa ku abuuri kartaa. maxaa dhehaysaa Somali software si kale ku abuuri karta. maxaa waaye inaad meeshaan tagtid right click new query, new database. magaca baxsanaya databaseka. tusaale waxaa baxsanaynaa Soomaaliya. okay, wax kuma dareysta. waxaa abuurtay right click refresh dhe markaas right click refresh markaa dhehid fiiri Somali software iyo Soomaaliya mujida labada database oo abuurtay. marka databaseka Somali software waxaan ku abuurnay qaab oo code ah u qornay. qaabkan kalena waxaa usuubsanay Somali caadina waxaa usuubinay right click new database askana. marka waxaan rabnaa inaan abuurno table, sidaa table abuur kartaa. marka create su-aasha koowaad saas ayaan ku abuurnay. sidaa u abuuri kartaa database. su-aasha labaad ayaan usoo gudbaynaa. su-aasha labaad maxay ahayd sidaad usuubi kartaa ama u abuuri kartaa table. markaan abuurayno waxaan u baahanaynaa waxaan dhehnaa new query, waxaan dhehnaa codekii, waxaan dhehnaa create. mar walba create waa dhehe table. marka tableka maxaa u baxsanaa Somali software. create Somali software. waxaan dhehnaa markaan id intaad dhihin waxaa u baahan tahay labadaas xaba fur dhexdood gaab inter leh. gudahaas waxaa ku qortaa id markaa inti waxaan dhehnaa name fajar ونسيت فوفرة waxaa dheedaa
waxaa gelisaa inta lambar galas tusaale soddon iska dheh marka soddon dhedid kama dheh enter dheh waxaa dheedaa meeshaan id name waxaa dheedaa qofka waxaa rabtid oo abuur kartaa tableka hadba meesha kuseeyo oo abuur kartaa marka tel iska dheh markaan table badan ma abuureeno tel tab iska dheh waxaa dhehnaa inti waa xirina kama okay marka saas dhedid waxaa u baahan tahay iska usage iska dheh maxaa abuurtay table soo maahan Somali software create table right click for tablekaas fiiri muku jira maya right click refresh dheh fur markaas table qaabka fusubiisa maxaa waaye tableka ay korkiisa tagaysaa right click markaa dheedid new table right click new table marka tablekan uu ku diyaarsan yahay kan waxaa dhehaysaa labis magacyo la gelinaya inta waxaa ku qoranaa id oo kaleete tab dheh waxaa inta ku qoraysaa inti tab dheh inta waxaa ku qoraysaa name tab dheh oo fudud yahay waxaa dhehaysaa vector caadi usoo qaado meesha ay ku jiraan waxaas tab dheh inta waxaa dhehdaa magaca le mar labaad Somali software Somali software tab dheh filartan waa furta direct muctaad ku tahay oo wax raadinaysid laas waqti waa filar furitaanka marka waxaa koodka caadi u qoro raajaan tab dheh halina tel tab dheh halina inti saa waxaa kusoo bisba table jadis ayaa soo bisay waxaa dhehaysaa markaas kan iyo kaas maxay u kala duwan yihiin kaas waxaa suubinaysay tableka kood ahaan ayaa u suubinaysay kood ahaan ayaa u qoraysay waa kana maxaa u qoraysay si kood ayaa u qoraysay laakise kan si kood ma u qoree maya waxaa suubinaysaa labis new table oo fudud yahay id iyo waxyaabaha inta la gelinaya labis ayaa iska shaqaysiinaysaa kadib waxaa dhehaysaa kan iyo kan maxaa dhehaysay iska usage samayn kan maxaa dhehaysaa kan bedelkiisa save magaca u baxso save kareenta waxaa u baxsanaa Somali software okay Somali software aa dhehday fiiri marka maxaa ku jiro table abuurta soomaan Somali software table abuurta right click ku dheh saa kusoo kicinaysaa inaad tableka markaa aragtid edit top ayaa dhehaysaa rows click markaa siisid maxaa kusoo baxay id name Somali software tel marka intaa wax ka qoraysa waxaa dhehnaa id soomaan 11,023 tab dheh maxaa dhehaysaa magaciisa asad Hussein Macalin Somali software waxaa dhehnaa free diskiisa wey waxaa la siinaa lambarka oo kusoo degsaday tusaale 15 tel lambarka laga haayo oo credit cardka marka bil walba waxiisa kusoo diriyo tusaale 4 konti saddexaad okay id-giisa mar labaad mid qofka abuurayna taadis 12,000 company leh tab Xasan Axmed no Daniel hadda lambarkiisu waxaa waaye 94 12 afar lambar leel rabaa tab dheh marka adiga waxaa u baahan tahay row markaad suubinaysid rowga wax weyn ma ahan meesha waxaad ka sheegi kartaa
roogu wax weyn ma ahan. roogu marba table column suubinaysid roogunu waa daba soconaa leh bis. marka has dhihin roogi maxaa loo suubi waayo ilaa marka hore kood ahaan waxa u qorine waxa u qorine table-kii ayaa kood ahaan u qorine column kale bisa qorine sameyn hadda marka column-ka daa suubisid waxaa suubisana roogini waa daba socdaa. hadda fiiri marka waxaan dhehnaa table-ka tage refresh noo dhexe waxaa gashana daatada waxaa gelinay asad iyo xuseen iyo xasan gelin soomaan red kali ku dheh ii top dheh waa kana daqiiqad automatical ku soo galay soomaan xabiib ma inta loo ku jiriya waa hagaag su'aasha saddexaad ayaan marownaa sidaa kusoo mudi kartaa database sameyn waxaan leenaha select calaamada xidigta kadibna from magacii Somali software oo kale Somali waa kan automatically inta ku keen Somali tewar ana tewar exclusive automatically wuxuu siiyay Somali software wuxuu ku dhahay ID iyo name iyo tel ayaad soo bisay Somali software oo soo bisay qaybta xigta iyo SQL la soco waa cashirkii saddexaad weekend dambe aan ka hadli doono Somali software ta barnaamij aynkan oo kale taan ku kulmi doono anigoo ah Maxamed Abuukar Cabduqaadir Danuurshe sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.